diinta ilaahay ayay ku gaftay si badheedh ah waliba afarta diinta qabto afar naagmo diin ani diinta qabtay ani diintay ma qabto qastay aniga diintaydu ma qabta bay tiriye adiga diintaada qabta waliba laba jeer afar ya ani diintay ma dhigoyto islaam baa naagtani mise waa gaalo gurigaa la wada joogaa dhammaantood waa barankii been ah caddayntiina waa tan ayagoo le waa ka jaraynaa baakin u raadiyaa shay socodkooda hadhow waa jaray ka soco muuqaalkii labaad aan arkaan maleynayaa oo diinta islaamka lagu xadgudbay iyadoo baraanki laga dhigayo channelka Shaadiya Sharaf waa muuqaal baa ka baxay habeennimadii xalayto markaan daawada anigu waan yaabay laakiin alxamdulillah dad badan oo youtuber baa arkay in diinta islaamka lagu xadgudbay oo wax la isla ogaan ay ahayd oo muuqaalkani sir badan oo ka shifay iyagoo marka hore ugu talagalay inay beentan jaraan ayay ku dhex ilaaween oo diinteena masiixa loogu gafiyaa gabadh kamid ah gabdhaha baraanka ka sameynaysan waxay oranaysaa anigu ma aaminsani diintan idinku haysataan umana ay sheegin way ogaayeen markii hore waatay lahaayeen hadhowin muuqaaladan ka jareynaa waxna anigu iska idhi maaha ilaa khayraas iyo boodhariga caashiqa waxyaalo badan iftiimiya sidii guurar hore beena uu social media ugu jiray oo iftiimiyeen ayaa arintana arkay oo dadkeena garadka kamida wadooda daawan karaysa wadaagi maayo waxaan jeebkayga ka keenay maaha waxa ila arkay arintan oo maskaxdiisu shaqeynaysa waa boodhariga caashiqa baleenu wada daawana insha Allah jira alamti aan nacmid dame هذا حول ما أفكي كيسا ما يا حيل لك تصاعد ما أنت صور كده تصور هذا في كابتلوها تاني يعني قبل إنتو اسمع إنتو وأنا أندرسيد المركز سمايو كاستي ما شكله بس تسكناف ما excuse me excuse me ما ينتي واحمد هي diinta adiga dhisoyta afar ya ani diintay ma dhigoyto adiga diintaada afar dhigaysa aniga diintaydu ma dhigayso macnaha gabadhani waxay sheegaysaa inaanay islaam ahayn bay cadaynaysaa adiga diintaada dhigaysa aniga diintaydu ma dhigayso ma dhihi karna gabadhani way caraysnay ma dhihi karna gabadhani way masayrsanay ma dhihi karna gabadhani carada ka keentay sababtoo qofka muslimka ah uu dambaabi karaa waad caroon kartaa gabdhuhu markay masayraan qof bay kow ka siiyaan rag bay dilaan biyo kuloo saliidaysa ugu shubaan mindi bay ragga geliyaan laakiin waa goorma waa marka ay wax saxa ay jiraan oo runa haddaba inay dadkani meel wada joogeen barankaygana been yahay gabadhanna ay leedahay diinta ay u gafayso ay wada og yihiin kooxdan oo dhan is wada og yihiin baan idin caddaynayaa wax yar sugan hal daqiiqo isuga daqiiqad wax ka yar minute isuga waatan cadayntii inay been ahayd oo baranki jirin oo guri la wada joogay ee afkooda ka sheegayaan sheekadina ay caddahay ayaan idin tusayaa waxana ku talagal yihiin qaaliga janalkay ku jirta waxa ila jooga walaalkay AK waxaan rabnaa aniga iyo dumaashideen inaan brand ku sameeyno reactionkeeda iyo qaabka macnaha dabeecadeeda waxay sameyn doonto waxay sameyn doonto saar u ogaano waa hordhaci barnaamijka oo beentii la rabay in loo sheego ayaga haddana isfashilinaya ila dhageysta ku soo aan rabnaa inaan aragno marka waa kana walaalkay waa ila ogyahay iida waxay ku jirtaa suuliga aniga iyo waxa isma og سوري كذا أي أشياء أساسا baakin ha gaariga waxay soo gelinayaan baakin u raadiyaa shay socodkooda hadhow waa jaray ka soco ninkii timaha weynaa ee khamiiskii sitay buluuga iyo ninkii kaamirada hayay iyo gabadhii xagga dambe taagan yihiin Shaadiya marka waxay tiri waxaan oranayaa gabadha Suuli gabadhii Shaadiya waxay tiri gabadhii Suuliga ku jirta marka salimay ka daahadhiine waxta ninka magaciisa maxaa shalay wax saas magac saasa nin ku jira iyo waa ninka khamiiska buluuga asita iyo hebel baa isla soo socdo gaariga baarkiga ku soo jiraan leh suuliga hadhiin inta hadhow waa jarayna mar labaad ila dhageysta mar labaad cadaynta ila dhageysta in la iswada ogaa oo arintan ku talagal loo sameeyay haba sameeyaan barakiga aan kuma haysto laakiin gefka inta leeg iyo gabadha la diintaada qabtaan iyo diinteedu ma qabto gabadhu waa inay saacadaysaa gaal iyo islaam markay tahay ila waa hagoogan tahay inkastoo surwaal la sidato laakiin gabadhu waa hagoogan tahay diinteeda ha cadayso gabadhu magaala midda kale dadka la joogay maxay ereygan gabadhan uga qaban waayeen ila waa la isku doogay wuxuu baranki maaha nakhalad baad ku hadashay meesha laga qaadiyo diinta islaamka waxa weeye admeed qof muslim ah ma muslim baa
خالد وي محاد إرجع ولده ليش مو أرن حتى أنت هدي قف لقى ما شرين ماشي إلى هاي وحكوضه دميرة ويلا كذا دميرة باويلا كذا عليه إلى دقيست waxay sameyn doonto aan rabnaa inaan aragno marka waa kana walaalkay waa ila ogyahay iid waxay ku jirtaa suuliga aniga iyo waxa isla og suuliga ka dhacay ayadi action asoo baakin ha gaariga waxay soo gelinayaan baakin u raadiyaa shay socodkooda hadhow waa jiray ka soco hadhow waa jirayna suuliga hadhiina xataa iyadii akshay baaliyada ninkan timaa weyn ee khamiiskiisa akshay baaliyada iyadii akshay baa ka soo socdaan baarkiga dheh suuliga hadhiin waa baranki been ah iyo dad guri wada jooga misana gabadhaasi diinta islaamka ayay ku gaftay si cad waliba ayay u gaftay iyadoo muslimad ah sida sheeganayso inagu Soomaaliyeed oo qof kasta Soomaali islaam baan u naqaana balse waxa ila cajiib ah kooxdan iyaguna fikirkan inay la qabaan iyo kala deha bareereen sababtoo ah anu markaan barnaamij samaynayo baranki beena samaynayo soo ognahay de qofkii yiraahdo war diinta la qabto aftaxo diinteedu ma qabto warad miyaan muslim ahayn baaranay ha qaldan wala soo aamusay waliba mar maaha oo laba maaha inta ku soo celisay dhowr jeer bay ku soo celisay ma ay tiri diintaada in qabto diintay min qabto oo cad baan ku mar waxa leeyahay diinta la qabto aan diinteedu ma qabto haddaba yaa la isu soo hagoogane xaqiiqada iyo runta qof waliba wuxuu yahay banaanka ha keeno baranki been ah oo aan jirin waa qaadan lahayn maanta haddii sidii hore aan ugu soo samayn jirtay ugu soo samayn lahayd war waa baranki ee digada laakiin waa fashilantii suuliga ku jirtaa ma hadhiina suuliga hadhiina xataa baarki aqshayga ay sheegayaan ninkan khamiiska sita waa ninka hadlaya ka kalena waa ka kaamirada hay dib malaana hadhu jaraya buleeyinta diintaada ana qabto diinteedu ma qabto buleey waxaasaynu maalin walba daawanaynaa beentaas iyo aflagaadadaas joogtada ah waa laynoo soo hagoogtay eegay maalin walba diinteeda iyo cirdigeena iyo sharafkeenna ayaa kuwana waxa weeye dadnimadeena iyo dowladnimadeena iyo dalkeena ku tumanayaan kuwana diinteena ku tumanayaan hadda sheekh santaa ninka riyaado seefta banaanka waxaan idinkaga tegayaa waa maalmo barakeysan qofku inuu diintiisa dhaqankiisa iyo dadnimadiisa difaaca barankiguna waa been bil Ramadaan baa lagu jiraa 10kii dambe xitaa waxyaalaha khaladka leh ee aad diinta ku xadgudbaysaan iyo waxyaalahan oo kale xitaa haddaad samaynaysaan hadhow ka jaro oo maskaxdiina ha shaqayso shilimaadka yarna ha eegina ilaahayna uga baqa qof walba oo commenti ama meel kale ka arki karana ilaahuma walaalka ahaadana waynaad runta u sheegi karaysaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin boodhariga caashaqana aad ayuu mahadsan yahay waajib baa ka saaran dadka youtuberada ku jira weliba ragga waaweyna inay waxyaalaha xaqiiqada dhaqanka diintaba ka hor imanaya mar walba ilaaliyaan ayagoo haddana shaqaysanaya rag badan baan ogahay kuma dhici karaan arrimahan inay ka hadlaan marka qofka xorka ah uu ka hadli karaya aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.